السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت شرفت له ما أنت وحاسد هاي بل أصحابته اللي وذاك أرنتان كوساب سن عسر نمذا وهذا الدنيا ذن لقبنا عن بحي ده كان لجود لايو مريكان كا ومذوقة ويودن في واحد بدن كنا الولين عدالة دارو لو لك ما يلقو واحد لو يساي كلية تاعنا ما دام أيهين ده كلر كود المذوقة waxaa arkay arintaas inay Soomaali badan ay ka gubatay Soomaali badan ay dhaheen arintan banaanbax hadda maanta fogsam magaaladeena camal waxa lagu qabtay banaanbax oo ku saabsan arintan laga soo horjeedo cunsurnimada iyo booliiska sida qaldan ula dhaqmaayo cunsurnimadana waxa ka jirtaa meel walba waxa ka jirtaa wadanka hadda ku noolna Norway way ka jirtaa wadamada Yurub wadamo badan ka jirtaa marka in la banaanbaxas laga qayb galo ay dadka ay ka qayb galaan ay muujiyaan dareenkooda ku aadan inay cusurnimada qaldan tahay wax fiican waa inay Soomaalida ka qayb qaadato waana wax aqli kasto oo nadiif oo sheegayo oo aqli kasto fiican laakiin waxyaabaha oo aniga asle dhankeyga ku aadan waxa culayska ugu hayso annagii Soomaali ahaan waxa jiro dad naga dhashay dad Soomaaliyeed oo wadankeena la jooga isku kalarnahay isku diinnahay isku luqadnahay wax kasta naga dhaxaya wadankii jooga sidaas ay tahay annaga qaabku waa cunsuriyeenaa annaga cunsuriyeeno annagii waxaan ku yeesanaa dadkan waxay ka dhasheen qabiil yar dadkan waxay ka dhasheen macallay qasada marka laga sheekay waa yaabaysaa sabab waay dadkan san loogu sameeyna waa hore wax saas sameeyeen dhaqan xumo sameeyeen marka ani ahaan waxa arkaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay ta'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم أديك وناقة فريسة أرنتان بنابح هذا كقرب قادنا إنه يوروبي مريكان مالهان وحواي بنابح كأدن إن أنكسر هرجي إن ضدك إن عدالة دارو لو سمايو ضدك إلى وحو أبورة لقى كسر هرجي استو كرر كاسمدو وجوده شين لقوا عنصرية لكن أنا جي كصومالي هان وناقة سمينه ونم كودك مونه أنا قارب بدنا نقترسا مرك وحرو أرنتاس إنا موجيو صومالي هدان هاي شقة بدنا أنا جنوتاله gurigaaga la nadiifiyaa kadib guriga kale loo tagaa gurigaaga horta ina ka bilaawno dadkeena Soomaaliyeed walaalaheen ah magaalada aan Yurub dad jooga waxay wali aaminsan yihiin inay gabadhooda ay geenin inay geenin qabiilkaas waa because gabadheeda ma guursanay qabiilka wiilka wuxuu ku dhashay qabiilkaas waxay maraysaa dad isku qabiila in la dhahno laftaan waa naga hooseysaa xogaar marka waxaan rabay in arintaas dhaho annaga oo naga gashay xidadada naga gala xidada marka annaga isku dadaalno annaga aan ka dhiidhino arintan dhibaatada ah dad annaga nalamida inaan cusuriyeeno ilaahay khayr hadan siiyo waxaan rabaa arintaas qof ka soo Soomaaliyeed oo culays iska saaro mas'uuliyad iska saaro oo ka qayb qaato wadankeeni waxaan cadaalad darada oo diin islaamna dhigeenin bilaadanimada sheegeenin dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo la cusuriyeynay oo waliba si xun loo dhaqmaayo waa la gubay dalad Muqdisho waxa lagu gubay wiil aroosay gabar waa la gubay adabtiisa la gubay wiil kale wuxuu maanta ii sheegay in guri reer deegaan oo dadka dhahaan Soomaalida iyaga iska dhaadhacsiin inay ka yariin oo Ilaahay sidoo u uumay iyaga ka fiican yihiin kuwana Ilaahay si oo ka hoose u uumo kale aaminsan guriga lagu gubay wax kale maaha because qabiil yar ka dhasheen because waxa aaminsan inay yihiin dad ka hooseeya dadkan kale marka anaga wax fiican waa inaa ka gubano madowga la cunsuriyeeye wax fiican waa inaa ka gubano cadaalad darada laakiin anaga yaa noqonin ilaahay quraankiisa dadka ku sheegay oo dhahay ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ama ilaahay markuu dhahay yaa ayyuhalladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun waxa dheesa laakiin waxa ka sameynaysa mala kabara maqtan inda Allah marka anaga insha Allah ta'ala dadkaas walaalaheena ah adiga hadda ay maqlaysid kan videoga daawadoona waxa u sheegaa annaga ina ilmaha dhashid hadii ay dhacdo inuu gabar oo soo barto dad qabilaas ka dhashay ama adigaba naftigaaga hadii uu ka soo doonto ama adiga ka doonto inaad dhahin qabiil way inaad ula dhaqantid qof walaalkaaga isku mid tihiin ilaahay quraankiisu wuxuu ku dhahay yaa naas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu ilaahay qabiladan kala duwan wadamadan kala duwan kalaradan kala duwan waxa dhay ilaahay wuxuu noogu dhigay kaliya ma wax kale waxaan ahayn inaas ku garano not inaas ku nacno not inaas ku jeclaano waxaas dhama waxa waaye
وكل جينا قف نوجو كلام بدن وحواي قفك إلهي كبقو قف وناكسن إلهي كبقاي مسلم إن شاء الله تعالى قف كاس ولكن أنك عنصر نمد أن جوجينو wax fiican waa Yurub inaan iska dhigno dad fiican banaan baxyada aan tagno qofkaas banaan baxayo biri haduu gabadhiisa la soo doonto wuu diidaa maxaa u banaan baxda marka ma sheegi kartaa sababta u banaan bixaysid way u gubanaysaa marka waa arimahaas yara xoogaa kuleel ugu qabto marka waxaan asxaabta la wadaag oo ah annaga walaalaheena aan saacidno aniga number 1 waxaan diyaar u ahay mar walbana diyaar u noqona in haddii ay dhacdo aan noolahay gabadheeda ama dada wax isku nahay qabiil qoraba ha ka dhasho qofkii soo doonto hadduu ilaahay ka baqaayo akhlaaqdiisa wanaagsan tahay inaan raali ka ah mar walba inaan raali ka ahay marka insha Allah ta'ala adinkan waxaan iga baryaa inaan raali ka noqotaan u ogolaataan aadan cunsuriyeen walaalihiina adinkan ila mid ah waliba ilaahay quraankiisu wuxuu ku sheegay qoom ka fiican mala inoo la siiyasama la yatarqawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ina niga fiicina badhici kartaba dadkan leedahay iga qaldan ilaahay idan barakeeyo waraa khaliil qaska joojiya khaliil ani dhiwani saaxiibka meesha dhiwo ilaahay barakeeyo walaalka iga yar marka insha Allah ta'ala ilaahay idan barakeeyo walaalayaal annaga cusurnimada aska waanino wadankii ha noqoto inta ha noqoto waxa yaab ugu dishay in aan meel iskugu imaanay asxaab iswareysanayna dad qaar ay dhahan gabadheeda ma raba inay guursato qof qabiilkaas kala ka dhashay diyaar umii waxa gabadheeda qabiil oo qabiilkeeda caawin arost dad waaweyn meel fadhiya ahayn cunsurnimo noore ma ka jirtaa daala sirta raaciro noore way ka jirtaa cunsurnimo dalad waxa la yeeshay shalamiya waxa la gabar Soomaalida lagu feeray McDonald annaga darad anagoo farinaaniyo asxaab kale oo sandwichen iska fanaa waxana la meeshan ka kaca ni oday waxoogaa maskaxda loogu jiro ugu leeyahay ka kacona dhaa meeshan because waxa tihiin meeshan private waa kula anaga meeshan dhisana ka kaca waan ada xoogaana igu kacdo waxaan dhakaalna kicado waa kanaay saadi gadaal dam gabadhiisa oo dhalaan ugu soo laabato wuxuu dhahday ninka maskaxda loogu jira waxaan ku sameeyay mala aabahe waa ni barya meesha iskaga taga marka cunsurnimadu wadanka soo ka jirtaa in laga qayb qaato si looga hortagi lahay si loo yareen lahay in laga hadlo wax fiican way laakiin annagana guryaheena Soomaali hadaana anaga isku dadaalno annaga iswaanino annaga aan iswanaajino kadib wanaaga dadka kala tusi karnaa kadib banaan baxyada tay karnaa kadib aan dhigi karnaa joornaalada waa ka soo horjeedaa dadka madowga oo buluuska iska dilay laakiin adar gurigaaga markii la joogin waa sameeysaa dada waxa leedahay qabiilkaas ka dhasheen because ilaaha ka dhaliy dad waxa kale ku haysataa ilaaha ka dhaliya ku haysataa asama doorta ada qabiilka ka dhalata adima dooran ani ma dooran qabiilkaas qofka ka asama dooran qabiil ka fiican ma laha waxa kale lagu kala fiican waa taqwada ilaahay hadal badan inaan ugu dhameey marabi ilaahay hadan barakeeyo barakallahu fiikum adiga inta ka soo daawanayso waxa ka codsanaa walaalayaal hadii wax hadal eray hadaa dhigi karto qof hadaa aragto Soomaali ah oo qabiil qof kale ku nacaay ama ku cunsuriyeenaa ama lafgaab waa lafweyn waay laan dheera laan gaab waxa aragto sheeg ina adiga dhaad walaalo wax qaldana wadaa halaas ka badan rasuulada dhan wax loo soo diray hal wax waay waxaan ahayd wama ala rasuuli illa albalaag wax kale ma ina dadka gaarsiiyana loo soo diray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay cali bin abi talib markuu yemen u diray inuu hal qof ilaahay ku hanuuniyo waxa kaaga fiicanta dunida wax kasto qurxan oo yaalo hal qof oo dadka cunsuriye jiro oo noqday oo dhahay inuu wax qaldana sameey jireen waa ka laabta hadda waa iswanaajiye taas kaaga fiican dunida dhan la wadaag qof kasta la wadaag salaaman ugaas mu soo qabo ilaahay ku barakeeyo wa shakan ku jiraano shakan ku jira insha Allah ta'ala marka ilaahay idan barakeeyo kelmadaas gaabana niila wadaagi rabay cunsurnimada annaga iska waanino intaana dadka la wadaagin ilaahay idan barakeeyo barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh